Iran waxay tan iyo bilowgii dagaalka ka dhanka ah ee Mareykanka iyo Israel iska kaashadeen la dhibtoonaysay cunaqabatayno xadka weydaartay oo goodoomiyay ilaheeda dhaqaalaha dhaqdhaqaaqyadeeda suuqyada ganacsiga ilaa socdaalka maraakiibteeda shidaalka oo xitaa ka hor dagaalka ku dhawaad 40 sano la dhibtoonayay nabad ku gaarista dalalka beecsada saliidda dalkani hodanka ku yahay mid naadir ah oo dunida oo dhamme hadal hayso ayaasi ah in jamhuuriyadda islaamiga ah ee adkaysi aan noociisa dunida horay loogu arag uga jawaabtay cunaqabataynada dalalka galbeedka ee ka dhanka ah dalkan tiyo ay haatan dheer tahay dagaal dabo dheeraaday iyo xanibaado hor leh oo tahan weydaartay saameyntii tabnayd ee ay cunaqabataynadu horay ugu yeesheen dhaqaalaha dalkan waxaase isweydiin leh sida xeelada sare iyo xigmadda ku dhisan ee Iran ula xarbiday xal u helidda xanibaadaha oo xakamaysay saameynta ay dhaqaalaha waddankan u geysan karaan ulana xiratay dalalka ay maanta oo kale u baxsan kartay ee ay cilaaqaadkooda istiraatiijiga joogtaysay sida Shiinaha oo isagu ah suuqa ugu weyn saliidda ceeriin ee Iran kaasoo kaliya aan iibsan shidaalka dalkani sidoo kale door shariif ka qaata sidii maraakiibta shidaalka ee Iran nabad qab ugu gaari lahaayeen xadad biyoodka dalkaas 10 sano ayaa lagu waramay in maraakiibta Iran uu si qarsoodiye ku gooshayay isla markaana dalal badan oo kala duwan calaamadooda ku safraya ay shidaalka gelinayeen dalka Shiinaha taasoo Tehran u noqotay cudud dhaqaale oo sahashay inay ku hoos noolaato cadaadisyada xadbeelka ah ee ay 10 sano la xarbiyeysay shidaal kaliya kama iibsado Shiinuhu jamhuuriyadda Iran waxaa sidoo kale uu ku garab istaagaa madalaha diblomaasiyadda caalamka halka uu sidoo kale ka kaalmeeyo docda hubka iyo istiraatiijiyadaha military ee doorka ku yeeshay guulka helidda duulamada ka dhanka dalkan albaab kale oo la wariyo inay Iran ka hoos gashay saameynta cunaqabataynada galbeedku waa jidbiyoodka badda Caspian-ka irid isku xirta dalkan iyo jaalkiisa Ruushka oo xoguhu tabiyeen in inta haatan dagaalka dalkan ka dhanka ah socday uu noqday dhabaha kaalmada military iyo dhaqaaleed dunta kaliya ee aan la carqaladayn iyo il dhaqaaleed kale oo Tehran u baxsatay jidbiyoodkan badda Caspian-ka oo ka caagan saameynta military ee NATO iyo Mareykanka ayaa Iran muddada ay socdaan qalalaasaha Hormuz si xoogan u adeegsatay kaasoo noqday wadiiqada xanibaadda ka nabdoon ee maciishada Iran iyo Ruushku isaga gooshaan dariiqa Caspian-ku waxa uu door shariif ka qaatay dib u dhiska diyaaradaha drone-iska ah ee Iran inta dagaalku socday oo Ruushku kaalmeeyay dib u amaamudkooda qalab ahaan halka sidoo kale xoguhu jabinayaan in Moscow dhabahan Tehran u marisay kaalmo hubeed toos ah oo dadaaladeeda istifaac door ku yeelatay dekedaha Iran ee saaran docda badda Caspian-ka sida Amirabad iyo Bandar Anzali ayaa si joogto ah u shaqeynayay muddada dagaalka iyo haatanba Mareykanka iyo Israel oo xilliyo kala duwan intii dagaalku socday duqeeyay dekedahan ayaa isku dayay carqaladaynta gaadiid badeedka intooda badan cuntada waday ka imanayay Ruushka ee dekedahan ku xiranayay hase ahaatee taasi ma joojin adeegsiga Iran iyo Ruushka ee dhabahan qarsoon ka nabdoon satellites-ka iyo saameynta galbeedka ee Iran u baxsatay